السلام عليكم. فيديو كان waxaa idinku sharxi doonaa qaab aad ku sameyn kartid website aad ka sameyn kartid maaragta $5 ilaa $10 5 daqiiqo gudahooda. Marka let's go to my screen-kayga tagana computer-kayga tagana ila daawo insha Allah. Waxaan tagaynaa Google ama search bar kan tagaynaa waxaan ku qoraynaa kartaa. Let's go to kartaa. Kartaa already waan joognaa. Login. So marka my rewards, see rewards kana dhaqso soo baxayo. So $5 kana kuna click ku siinaysaa. So marka click ku siisid waxaa raadinaysaa maaragta software adiga aad isticmaashay. Hadda tusaale ahaan hadda ku dhufatid Microsoft Excel kana marka Excel kan hadda tusaale ahaan marka magacaada buuxinaysaa. You need to make sure ina legit ya email ka ku qoraysaa halkaas. Job title waxaa leedahay make sure ina freelancer ku qortid ya freelancer. Okay, organization name magacaada ku qori kartaa kaasna caadi waaye. Industry waxaa waaye so tusaale ahaan marketing and adaa qortid advertisement tusaale ahaan aad doortay. How long have you using software kadada intaa use garaysid waa 6 months 6 to 12 months use garay because enough experience ina u leedahay cadeen u tahay. Marka in what capacity do you use let's just say spreadsheet productivity marka kaasna okay waaye. How frequent in messenger I isticmaalayso waaye marka waxaa leedahay waxaan isticmaalaa weekly. What's your role marka I'm the owner dhigi kartaa I'm administrator I'm user administrator. Okay, marka labadaas ku dhaafayna for now and then we go next. Company size myself are there because freelancer at tahay qof aad mugtahay. So that's that. So marka wuxuu ku soo bixinayaa review markuu ku soo bixiyo overall quality giis waxa 5 aska siinayna. Easy to use kana 5 aan siin karnaa. Functionality giis nuu fiican yahay. Customer support giisa is optional. So marka value for money lacagtiisna is not bad. waxyaalaha optional ka maaragtay hadda waa iska dhaafi karnaa. Let's just say kaska waan ka boodi karnaa. marka kuwan inaan rate garayno waaye. marka data import export ala maaragta wax markii laga download garaysanayo ama lagu shubayo ama laga shubayo. Okay, it's really high wuu fiican yahay. File sharing kiisana wuu fiican yahay. Okay, data visualization kiisana wuu fiican yahay. Management wuu fiican yahay. Not used. File search kiisna it's kana waxaan dhigi karnaa wuu fiican yahay. and then hoos u baxaynaa charting. Really that I like charting ka real time update not used. ina wax ku qorno waa meeshaan ina wax ku qorno waa accuracy. Let's say accuracy and high speed, for example high speed of data import and export, right? And then file share in faster and accessibility, easy to access. No access management.
marka let's say data visualization. Okay, let's just say accuracy measurement. Document management, ability to grant access or to grant or deny access to outside users. Marka you have to be creative, yeah, and qasab maaha waxaan inaan qora inaan qortid. That's just what I think. Not used. Search filters. So waxaan leenahay marka compatible with any browser. Okay, has great tools to use when adjusted and lines, rows, and charts. Okay, real-time update not used. Okay, because collaboration tools, that's also critical. Good with collaborating with other tools. Comment and notes. Okay, has space, easy to add or side notes, which is important to the users. Okay, notes management, high, just write good has good note management tool. Let's just say that. I did not use this one, not used, but I'm sure it has a drag and drop. Okay, it has also good templates, great templates, which makes easy for the users to generate ideas and implement. They're ready to use template. Okay, so meeshan lacag waaye. How does the price for the Microsoft compare to similar product? Look, optional waaye, so let's just say mid-tier waaye. Okay, so how likely is that you will recommend Microsoft to other people, among other colleagues or friends? Okay, let's say 8. Marka page 3 او good bayna. Okay, error note to say marka ma marka hada show note yar au ku qortid until 20 characters ku kaaga baahan yahay. Marka waxa delete gareynayna kana delete gareynayna aan fiirnayna hadii wax ku qor u dhaaya hadii kale. Same thing here. Okay, let's see next. Okay, here we go.
marka I think this is the last page. I'm gonna 3 out of 3. Yeah, marka qorena Microsoft review. It is an easy to use software has ready to use templates. You can easily manage your projects it is compatible with other حرف fix قرينا compatible. It's compatible with other softwares. Let's just say softwares, and easy to upload. Let's just use the correct words. Input and export data. Okay, that's fine. Marka waxaan loo baahan 40 oo kale, but if we reproduce 40 wax ka badan hadaa saarno caadi way beel way. So marka waxaan ku jeclaatay you can share your project with your team and communicate within the software. Okay, kaasna kasii gudub. Describe your overall experience with Microsoft. I liked the software. It is important to manage my business. Okay, marka kana optional waaye. However, did you switch from another product? Meel kale ma ka yimaado kale mise product kale isticmaalaysa ma jira Microsoft software ka hore. Marka no iska dhayna. Okay, while purchasing Microsoft Excel, what alternative product were you considering? Marka kan optional waaye, haddaan rabna ma ka jawaabayno. Laakiin waxaan dhihi karnaa waxyaalo kale waxaa jira like product of Microsoft maxaa la dhahay amal u eg. Marka laakiin optional waaye, we don't have to answer that. So ana hata wax kale kor ka hay wax kale. So we're just gonna move on. So why did you choose Microsoft? Okay, I used it. No, I was exposed. I was first exposed to Microsoft when I was in school, and I liked it. Okay, kind of optional waaye. Do you integrate any other products to Microsoft? Yes, aska dhigi kartaa, laakiin su'aal kale nagu furayaa. Waa kana marka productiga soo sheega u dhaca. Let's just say WordPress. I think so. I don't know. Let's just say that for now.
so marka waxaan kala garanaynaa inta click ku siinaynaa and then we submit ina human na uu rabo inuu caddeeyo marka characters doorna character kan character waaye and another character tractor kale u jeedi so marka verify andayna boom marka wuxuu leeyahay your review waa la diray marka maxaa la dhahay dad kale maaragta business adiga camal caawinaysa decision inay ku gaaraan reviewga marka inuu daacad ka ahaado waaye so marka keep the momentum uu leeyahay wuxuu suggest garaya kuwan dhan inuu maaragta so marka $5 waaye qaarkooda $10 waaye hadda tusaale ahaan Trulogon oo kale hadda ku dhufano mid oo kale hadda QuickBooks oo kale hadda kor waa isticmaalay but let's just say kan wuxuu meequna siin doonaa marka soo maartid haddaan ku dhufto uu sii soconaya marka waxay ku adeed 10 xabo asmays oo kale oo $10 xabadkiiba u yahay $100 literally 5 minutes ay kugu qaadanaysaa marka I don't want to do it marka saas waaye and saas lacag ku sameyn kartaa every month saas ay ku egtahay insha Allah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh marka videoga intaas ku reebaynaa qaabka koowaad waaye marka videoga xigo waxaan soo dhigi doonaa insha Allah qaabka labaad oo u sameyn kartid maaragta website-kan hadda aan ka soo gudubnay lacagta marka sida u jeeday ka sameeyna lacag maaragta $5 and for 5 minutes marka hadda u baahan tahay inaad baratid qaabab maaragta internetka looga sameeyo online waxa course maaragta caadi maxaa la description hoose ku qoray marka waa booqan kartaa page-ka marka hoos ku qoran yahay insha Allah hadda u baahan tahay maaragta wax kale oo dheeraad ah ama maaragta communication ama email-kayga ka heli kartaa caadi maxaa la dhahayo on the channel-kayga insha Allah waa ila soo xiriiri kartaa